السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلوى دمت عافمات maanta waxaan wadaa cinnamon rolls aad u fiican maanta maadaama jimco tahay wax yar oo special ah ayaan subaxii quraacda uga dhigaa caruurta wax macaan marka insha Allah maanta waa cinnamon rolls alaabtii aan ka sameynaa inta ii saaran tahay kulli waxay halkan iigu jiro oo ku soo cabirtay saddex koob oo burka cada koobkan measuring cup-kan isticmaalay marka waa saddex koob oo koobkan cabirka ah iyo intaas yarta ah oo rabo inaan ku xasho insha Allah burka cusbo yar 2 qaado sokor ah waa yeast instant yeast waaye xabad ukuna ku darsan iyo vanilla ah iyo Sida of course cinnamon iyo koob caano oo qandaca halkaan waxaan ku haystaa cream cheese iyo butter iyo sokortan waa frosting baan ka dhigan doonaa insha Allah taala insha Allah waxaan kusoo darayaa sokortii waxaan ku daray yeastigii iyo cusbadii si fiican isku qasaya intaan ku darin waxyaalaha qoyan caanihii baan kusoo daray qandacaha qaadadii vanilla ahayd cinnamon gadaalan kaga darsanayo also saliid yar ama butter wax saliid leh ku darto adiga 2 qaad camal marka isku qasaya waa sida pizza dooga ama bread camal kana kusoo ridaya insha Allah soo xashaya kadibna waa isku soo noqonaynaa qastaan badan uma baahna waxaan soo qasaya intii oo iskaga dhex galo oo burka dhan uu iska soo raacaan aan qasaya insha Allah uma baahna aad inaa u xashto oo in badan aan qasto uma baahna runtii marka insha Allah waan soo dhameystiraya waan tus doonaa sidoo uu yahay 2 to 3 minutes insha Allah waan soo diyaar waaye waa soo xashay waqti badanna ma qasido uma baahan marka weelkiisii horaan ku celinaya yarosayna korka soo marinaya sugayaa adiga hal saac ama intuu double ka soo noqdo insha Allah waa soo noqon doona haduu la yiraahdo waa soo laabtay burkii waa kana double ii soo noqday marka hal mar aan fidinayo laakiin waxaan diyaarsanayaa sokorta iyo cinnamonka insha Allah waxaan ku darsanayaa adiga 2 qaad camal oo qaadada waaweyn cinnamon
iyo sokor koob halfkiis. kaas diyaar u yahay. waxaan kaloo diyaarinayaa bararkan halfkiisa soo dhalaalinayaa. inta kalena waxaan u isticmaalayaa halfka kaleeto frostingkan ku darsanaya. marka intaana soo dhalaalinaya microwave ku soo dhalaalinaya. burkii wali intaasaan ka isticmaala badan kama isticmaalin. marka yaro baahan meesha soo hal mar loo fidinayo hadan burka dhan hal mar rabaa inaan fidiyo marka insha Allah. insha Allah waxaan rabaa inaan hadduu ilaahay yaraan soo fidiyo kadibna waan isla arkaynaa insha Allah. Kan soo marinaya dhinacaan dhan ma gaarsiinayo. waa dhinacaan aan rabo inuu iskaga koolo biyo yaraan ka marinayaa si uu isugu dhago dhinacaas. marka waa ka ilaalinayaa intaas ma marinayo dhinacaas dhan ma marinayo insha Allah. haddaan ku daraa sokortii iyo sanaminkii. marka sokorta inta aragtida ku darsan kartaa, haddii aragto ku yareyn kartaa. dadka qaarkood waxay ku darsadaan sabiib. anigu waxba kuma daraayo. hadda waa soo duuduubaya inta ugu dambeyso. haddaa rabtid biyaa marin kartaa iyo qoyaan yar. haddii kalena uu burkaada saaid u jilcan yahayna waa isku dhedhejinaysaa. ana isugu dhedhejinaysaa. soo diyaarsanaya weelkaan ku ridi lahaa. marka waa soo jaraya insha Allah. qiyaastii adiga rabtida ka soo dhigi kartaa. saana soo gogoynaya marka. waa inuu isla ekaado. marka weelkaanaan kusoo diyaarinaya insha Allah. waxaan u dhexaysiinaya wax yar oo space ah si oo mar labaad inuu soo faxo waayo soo qamiiro. kulligood space yar aan wada dhexaysiiyey. marka insha Allah saana kusoo baxay. marka mar labaadaan daboolayaa si oo mar labaad insha Allah u soo faxo. haddana waxaan sugayaa 30 daqiiqo kale. waxay ku xiran tahay sidii oo ay warm u tahay maanta way yara kulushahay. hal saacaan sugayay markii hore.
marka waa arki doona intay qaadato insha Allah markuu double soo noqdo aan ovenka shidanaya markii ovenka aan geliyaan sameysanayaa frosting aan korka ka marin lahaa meeshiisaas u dhaafaya soo noqdo wanaagsan masha Allah hadda soo noqday soddon daqiiqo ka soo reegtay markaan soo gargalaarta kulli masha Allah si fiican u soo baxay qararkan yarkaan korka ka marinaya marka ovenka uu ii daaran yahay 350 insha Allah soddon daqiiqo ama adiga 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ilaa uu ka guduto korka aa sugaysaa insha Allah waxaynaysaa ma garata insha Allah ovenkan gelinayaa sidoo ku soo baxana waa bilaafi doontaan insha Allah hadda waxaan sameysanayaa frostingkii insha Allah hal qaad camal ay ugu jiro barar ah oo aad u jilcay room temperature ah banaankan u daay xoogaa soo inaad dhalaalsido ma baahnid ma baahna in la dhalaaliyo barafka laakiin barafka ma yahay bararkan inuu jilco baa loo baahan yahay oo softer noqdo banaanku saas ku noqonaya hadii ay dees xoogaa banaanka cheese-kan sidoo kale marka intaan waa very simple aad u fudud yahay waxaan kaloo ku darsanaya caana korkii baan kusoo daray marka saanoo kale inuu ahaado waaye verticna ma aha mana aha jilaac saayida oo daboolanaya insha Allah waxaan sugayaa intuu ka soo baxaayo cinnamon rolls inta ka soo baxnaa sugayaa marka saana ku soo baxay waa kulay laakiin aad u jilcan yahay oo qurux badan yahay hadda marka hore ayaa ka marinaa intuu ku leeyahay frostingka intadan markasta wax la cuno ma ahan laakiin waa wax macaan oo ay tahay marmar la in la cuno marka sokorta ma cabirin laakiin qiyaasta waxay ahayd koob halfkiis sokorta budada iyadoo ku qasay alaabtan koob halfkiis ay qiyaasta naga waan qiyaasta intaan isticmaal waan aqaana marka cream cheese ka xoogaa waa dhanaan u leeyahay marka hadii aad dhadhamiso sokorta sayd oo ma soo dhadhamayso maadaama cream cheese ka uu badnaa koob halfkiis ay ahayd qiyaasta sokorta asqorta powder-ka ah aan tusayaa sidoo uu yahay soft gaashan oo taas ku yahay aad u jilcan yahay ma sha Allah korkana crispy ka noqday gudahan saas u soft uga yahay wax macaan marka salana ma aha laakiin waa wax marmar la cuno
وكاس هورتي iyo cinnamon dhexdaan ka mariyo wakaas saas oo suuq dhalaalay ma sha Allah وكم سنتين داوشدينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.